الله وبركاته. ضمان مرت الشرف استقلت جدا فهم ويدا لبدا الشيء الدول لبدا قال مرتي يوم الكرام وفتيدا بدونياشا يحضرها سقطة حزبية المعارضة وزير بعض الصحافة دمانتي وان بسوء وينيا كصور غير شركة أي هجامين يسوي وزارة أهلها البلد إن نقول في الرباعية تطوير وتصل نضوط الصومال الحي 5 محاولة سوري الوهي وفود النوع نعتمد welcome to you all مرحبا بكم قريب صار أنت أيامك الشيء مدحض الصومال لا هذا الشيء وحاضرني لبا صدح قضم أو الصومال اللي أقاره أي سمات قاره تاريخ أدوك دادك الصومال اللي إنو بياهي داد سكو كالصون أو إساو وحورية أو وحبسة أو دلكي سيراشده أو هرمارك يحريد الجعل تاريخنا الله مرحات فتا الصومال اللي مركي أفريقيا استعمال بسوق الأيي ضمان عيد كستو أجنبي وطفل oo dalka Soomaaliland markaa dadkii gubaysanaya heshiisay ay la gashay ay ku ilaalinaysan danaheeda iyo dalkeeda oo ay leedahay martaba guud Soomaaliland waxay taariikhda ku leedahay waa ummadii la dagaalantay gubaysiga 20 sanadood ee markii loo taag waayay ciidanka daraawiishta Soomaaliland waa meeshii ugu horeysay ee diyaarad lagu garaaco وحنا كلا عالم كنا دخلت أفريقيا كوكا إنديا على الوقت يوم ودعنا إسا حرية إلى أوروبيسية سومالا وحنا كلا تاريخ كوها أي شيء إن أي تهاي ذلك القرى يقولي إسا دكتاتور كلا دعنا ماي هو على إسرائيل على ذلك كتير مقالين كي هذا كبر إسرائيل أتكيس كذا يلي هذا كذا برتا waxay taariikhda ku gashay Soomaaliland dalka iyadoo oo dagaalka inta la ku dhacay oo magaalooyinkoodii la burburiyay oo dadka orada u dhaxamuray haddana dooratay inay iyadoo dhisto nabadda isutaanka iyo dawladnimada oo aan u adeegsan ama u yeelan cid kale inay soo farageliyaan waxaana markhaati u ah 1995kii UNISOM markuu hogaamiyay General Howe inuu halkan dabcay oo xafiis ka furay UNISOM ama uu ciidan keeno oo Soomaaliland shacab la guurti iyo madaxweyne markaa joogay xukuumadda iyagoo isu dhan ay diideen lagana xiray xafiiskii UNISOM Soomaaliland ay ka dhigatay dawladnimadii ilaa ay soo gaartay doorashooyin xor Soomaaliland calaamadaha soo gaaran baafi intii hore iyo horreeyay Distinguished guests, ladies and gentlemen, it's a great honor for me to address the participants of the important conference on Somaliland achievements and challenges ahead 27 years later. Particularly, I would like to express our appreciation to Somaliland friends who traveled from far to attend this important meeting. The government and the people of Somaliland are fully aware of the important role that Somaliland friends play in strengthening the relationship between Somaliland and international community and their tireless effort to help Somaliland achieve its development objectives and international recognition. History will recall the important role of Somaliland friends. Ladies and gentlemen, however hard we try, we cannot capture the tremendous achievements Somaliland has made in the last 27 years. Therefore, I would like to mention the most important ones. Peace and reconciliation among the Somaliland regions.
demobilization of the militias and establishment of Somaliland National Army Force, military, police, custodian, and intelligence forces. Referendum, state and institution buildings. Referendum on the Constitution, and it has been approved by 97% of Somaliland voters. Implementation of the democratization process and holding of multiple rounds of peaceful, credible, free, and fair elections. Economic development and successful efforts to attract foreign direct investment. Chief among them is the expansion and modernization of the Berbera port. Somaliland's contribution to the regional peace and stability. The role we play in the regional economic integration through utilization of the soon to be expanded, modernized Berbera port. Ladies and gentlemen, during the last 27 years, Somaliland has faced a lot of challenges. Most of those challenges we overcame. However, there are still some challenges that we are still tackling, including the following: economy with limited resources, huge unemployment level, particularly among the youth, lack of international recognition, which impacts negatively on our ability to obtain our rights, including international economic support, especially from the international financial institutions. Limited resources for better infrastructure and development. Our government is continuously working on strategies to address these challenges facing us in the contemporary period. Ladies and gentlemen, we are closing the following changing dynamics and the port's competition in the region. The expansion and the modernization per port provides Somaliland with the opportunity to play an important role in the regional economic integration. Somaliland plays an important role in the peace and security of the region, which we spend considerable amount of our limited resource. Somaliland is an oasis of peace and stability, free from the scourge of terrorism and piracy. You have a lot of things to deal with in the conference, so I do look forward to see your views and recommendations on the way forward for Somaliland Republic, including the aforementioned challenges. Thank you all very much. qodobka kale ee looday ee Somaliland gaarkeeda waxa weeye Somaliland waxa leedahay xisbiyo mas'uuliyiin oo bisil ee dalkooda dhistaan mucaarad xaafid waxaan amaanaynaa oo soo dhaweynaya dhalinyarada iyo tusaaleynta dalka lagu dhisay ee xisbiyada mucaaradka anigoo hogaamiyaasha xisbiga mucaaradka labadiiba inay yihiin shacabkooda taageerayaashooda iyo madaxdooda dad muwaadiniin oo jecel horumarinta dalka dalisha ay soo jeediyaan waa u bogaynaa waayo dalka ka dhisayana waxay leeyihiin hawsha sii kordhiya faraska hawsha waxa loo dhuftaa hadheeray dad badan oo dhageysta oo qaata cadaawad iyo xumaan dad badan baa qaata in la cadaawad iyo xumaan waa haween qaranka oo hayaan way ku ammaanayeen waa soo dhaweynaa wasalaam